أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذن السلامي دمان قولها يكون مديسيهين قولها سيقالي استيت الحمد لله ما أنت واحد بدنا لفلنقي hadday noqoto sharciyada hadday noqoto cidii wax tabanayso dhammaan si fiican loo wada hadlay mid ugu horeyso horta waxa waaye walaalkeen Muun Cali ayaa martiqaaday ma sha Allah hadda galabta oo 12 saac ay tahay ilaa iyo jimcaha markaan soo dukan ilaa hadda gurigiisa fadhina ilaa iyo lagu qaday lagu casir cabay waa nagu mahad celinayna oo duceynayna walaalkeen marka hadii aan idin soo koobo waxyaalaha wax qabadka ka soo baxay ama wada tashiga dhammaantiin horta waxaa idinka wakiila dadka maqan dadka joogo insha Allah waxyaalaha aan soo go'aaminana kulli waa ku farxi doontaan wax qaldan kulli ma jiri doonaan waayo ilaa madaxweynaha ilaa iyo dhammaan waa wada joognay bulshada dhammaan rag iyo dumar saddex dumar ilaa iyo dhowr iyo 10 rag 17 rag camal dhammaanteen waa wada joognay ilaahay waa nu kulmiyay ilaahay waa nu guuleeyay saacado badan iyo wada tashi dheer kadib waxaa soo baxay sharciyo mandateska wuxuu soo baxay mandateka kow sharciga koowaad golaha maamulkooda waxa uu bilaaban doonaa wuxuu dhammaan doonaa 6 bilood laga dhigay mandateka doorasho 6 bilood kadib waa 20 bisha 12 2020 ayuu dhammaan doonaa ilaahay haduu yiraahdo waqtigooda uu ku egyahay waqti doorasho loo gudbi doonaa insha Allah maamul cusub waxyaalaha la soo saaray waxa kamid ah kow waqtigaas mandateka labo administrationkii guddigii hore aan u dooranay Cabduqaadir Salaax Xasan Ilkashanlo iyo Jalow waana la joogeen waxa la go'aamiyay wada hadal dheer kadib arimaha horta waxa waaye hadda shuruuca ku dhaqmi doona insha Allah oo aan degsanay hadda wixii ka dambeeyay laakiin markii hore waxay ahayd xeer jajab oo dadka abaabulkeena waad ogtihiin abaabul boobsiiso ahaa dhaqaalaan aruurinay dhaqaalihi laga wada hadlay dhaqaalihi marka laga wada hadlay waxa soo baxdo la isku raacay in loo dhiibo maaliyadda dadkii hore waa naga aqbaleen Jalow iyo lagu wareejiyo maantana la bixiyo dhaqaalaha la haayo 150 bashow 100 Xasan Jey 100 Jamaal meeshaas waxa way 350 waxa way gabadha Cali Fari Allah u naxariisto oo qabay xaaskiisii hore marka intaas afartaas 100 bixayso 100 iyo wax la jiro harayna waxa way mobile laga gedi doona waxaan ku wareejinaynaa ragga maaliyadda aan hore ugu xil saaran ugu dooranay ayagaana hayn doona ayagaana waxa kale oo la sameeyay marka administrationka la sameeyay waxa kamid ah 3 qofood oo xaqiiqo raadina ayaga 3 ay leeyihiin annagana 3 xaqiiqo raadin xaafadda waxa way markii wax la sheego wixii lagu heshiiyay horta waxay tahay yaa la siina markii waxaan la aruuriyay lagu bixina intee lagu bixina lacagta la aruuriyay waxa la isku fahmay waxyaalo oo si dheeraanay jiitamaya jiro hadii oo wax walba oo saana lagu bixiyo waxa la go'aamiyay fikiradii oo la soo jeediyay oo ay kamid tahay bulshada baahi iyo bugto cad ah wax cad ah dad baahan iyo dad buko oo isbitaal caafimaad u rabo midda saddexaad tacsiyadaha si gaar ah akoonkaas inaan laga bixino si gaar ah tacsiyadaha way jirtay waa la isku gurmadaa taas gooni inaan isugu gurmano oo dhaqaale gooniya waxa kale oo meesha ka soo dhawaatay midnimo ah oo sii gaala labada dhinac naga horeeyay oo hawsha waday maamulkoodii labada dhinacba hal maaliyad ay yeesheen laakiin waa laba akoon waa laba siim midowgeeni waa wili laakiin hadda wada shaqeyn naga dhaxayso ruuxi wax la siinayo labada dhinacba way wada tashanayeen saddexdooda oo guddiga xaqiiqo raadinta iyo saddex fulin ah la sameeyay oo groupkeena saddexda fulintaana waxa laga dhigay Umar Gaadaay Ali Jey iyo Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka waxa lagu daray Idris afar oo guddiga fulinta saddexda xaqiiqo raadintana ayagana waa la sameeyay sidoo kale waxyaalaha la qabtay waxa kamid ah in groupka golaha shuurada dib loo oo insha Allah oo ayadana loo cusboonaysiiyo oo howlaha aan bishi waxa kamid ah maaliyadda dhaqaalaha habka lagu bixin hadda emergency wax ku aroon dhaqaalaha bil walbo dadka dibadda $10 ilaa 20 wixii ay rabaan bishi ay soo dirsan karaan hatta 5 bilood 6 bilood iga qabo min 10kayga ama 20kayga dhigi karaan dadka dibadda dadka gudaha jooga bil walba $2 ilaa $10 wax ay rabaan bixin laakiin laba masdiya
qof walbo laakiin 5-10 uu dhiibi karaa 5 bilood 6 bilood iga qabtan waa dhihi kariyaa insha Allah asagana marka dhaqaalahaasna hadda kadib waxaa lagu bixi doonaa wax aan ka tashanay dhulka roos ku dhaxdaadsaneen guddi fulineed guddi xaqiiqi raadin dadka qof walba qof uu soo sheegay inuu xaqiiqo la raadiyo noqonaysa marka insha Allah dadkaas walaalaheena afartaas qaybood intaas la kala siinaa maanta wixii harana waan way hareen akoonkay ku hareen bishaan wixii ka bilaabatana nin walba u diyaar garow ninka gudaha joogan inaa bixiso qaaraanka billaha ninka dibadda joogan waa inaa bixisaa qaaraanka billaha ilaahay haduu yira markaas kadibna gudiyada waxay arkaan ayaga ka shuuroo doona wixii la bixinaayana waa in idinka leedin hor keena aad ka tashataan baarlamaanka iyo shuurada waxaana idinka soo go'aaminina lama bixi doono ilaahay haduu yira marka warkay idinku dheereynina baadu shidda wa tacab waxa waay alxamdulillah ilaahay waana haleelsiiyay marka arinta meel fiican ay ku dhamaatay waxaana idinkaga mahad celinaynaa hawsha aan noo soo xil saarteen ilaahay waa nagu guuleeyay naga raali ahaada waadin salaama dhamaantiin rag iyo dumar marka ku kalsoonaada dadkiina sameeyna magac lagu sameeyna hanaankeed أنا كوان عيارتي سينالي عشان أخذنا إلى حمديس بشالو ما كنت تا فيري حتى جعمها لو سمعي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي ما تحجبنا حبر سيجان موجودان دتك مارتي ووينك إلى تشوجو ما شاء الله نورك حافظ وقوان وحواي الحمد لله وحيد الله هاي سودبية أصحاب سودبية أصحابته سيجال ودني واي أو مارتي الجعل والجعل شاء الله هيسال شيء واكا اللي واحد شاء الله واكا جلا واكا واني سلام واني سلام واني سلام سيجال سيجال سودبية إذا حد عبد الله وطاطا صوت النصر صوت النصر أنا صاحب السيجال والوصل أتريد لك وطاطا ولو ستان وما بوي كسيجال ولا لا جعلانو سوى وسوريستا وأنا بقول ما دام مسؤولين سلام أنا ترجمة ترى تقول شو السنة لوغار ما ينفع السنة أنا سلامت هقول بينا يدعى صور قعمها فيري قبل